waa munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay buug laga qoray madaxweynaha afraad ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madashan lagu soo bandhigay buugani ayaa ka qabsantay hotelka Kaafi ee magaalada Burco waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka ka degmada Salaadiin Cuqaal dhalinyaro ganacsato mas'uuliyiin ka socda saddex xisbi qaran haween ururada bulshada iyo sidoo kale marti sharaf kale aad u tiro badan ugu horeyna waxaa madashaasi ka hadlay qoraaga buugan ee xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan oo faahfaahin ka bixiyay buugan uu ka qoray madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo buugga waxaan u bixiyay magaciisa Axmed Siilaanyo nin tacab badan geliyay qarannimada barnaamijka la yiraahdo iska u qabso dadku waxay u haystaan inuu siyaad baraalifay Axmed Siilaanyo alifay Axmed markii uu xisbi mucaarad noqday wuxuu ina baray oo hogaaminayay xisbigii kulmiye oo mucaarad 8 sanadood wuxuu ina baray mucaaradnimada sida loo si ilbaxnimada si loo mucaarado Axmed wuxuu noqday madaxweynihii Soomaaliland marka laga bilaabo gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee gobolka Togdheer oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay buuggan laga qoray madaxweynihii hore Soomaaliland sidaa uu halgamayay ee moralka uu keenay isagu lagu qabsanayay dadka dhan lagu badbaadinayay buu horta Axmed Siilaanyo Axmed Siilaanyo wuxuu inoogu suntan yahay astaamo aad iyo aad u badan Axmed Siilaanyo waxaan u maleynayaa caawa ducun buu halkan uga baahan yahay madaxweyne wax badan xeeriya oo tanaasul badan buu runtii ahaa xubno ka mid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo maareeyihii hore ama shidaalkii Berbera oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhdii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dalkani Soomaaliland ku lahaa Axmed wuxuu ahaa nin dul badan oo aad iyo aad u dul badan oo dadka talada wax ka siiyo madaxweynihii Axmed Maxamed Siilaanyo waa soo wada shaqeynay nin qaaliya buu ahaa hogaamiye ah أحمد ودو شيحي وحونا ودو شيحي ومدى حنك إيه هجانك دلك يعني وحوي كوهامية يسكون فكريسة بوجا خيان أو أي كديكتان رول ميل كودا يشو إني كديكتان رجي مالنتا وحنا شيء كشري ما أنت وين لو برورتا رجي مالنتا نعاي كشري وين برورتانهم وين وحيد هذا والله بالله دولة دين وحقبت به إنك استود دولة ما أنت كشرتانا أي تي كل ميتها يو أنا وأن لا يهاي هلا يرسوا موسى نوان مدرسة كشري أو هذي مجاهد نمتهاي هذي مدحوين نمتهاي هذي مال والبتهاي سيلانية مدرسة دي سرقي كشري وكمدي هاي وأنا نرجعين دونا إلى 10 دي بدنايكم مغلا كدو حان أو أي كسب حان هذي يرى الرجال يلا دك سنين إلى 10 باكم مغني نقول هدوم معلم لا هاي 10 دويكم مغين مركا هدي أضمان تتودو waynu sugaynaa inay 10 ka soo dhawaadaan gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday xildhibaan Marg Yuusuf Cilmi Biddi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay madaxweynahani maanta Axmed Siilaanyo halkan buugiisa lagu hayaa abaalkii qarankan iyo dalkani uu ku lahaa uu ka soo baxay dhammaan ka soo qaybgalayaasha hadday tahay madaxda iyo hadday tahay cuqaasha iyo hadday tahay xisbiyada qaranka iyo haweenka hadday tahay qurbajoog hadday tahay dhammaantiin aad iyo aad baxan idinka mahadnaqaya oo ajiibteen inaa ka soo qaybgashaan buuggan laga qoray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadda daabacadda ee Sagalchad managerka Maxamed Daahir aad iyo aad baan ugu mahadnaqay iyaduna leyrka ee Heeko oo iyaduna runtii iyaduna nagala qayb gashay aad iyo aad baan oo noo fududeeyay oo nala shaqeeyay mulkiilaha ee hotelka la joogna Kaafi Hotel madaxweynihii hore ana musharaxa idinkuna ana dooranayseen lay oran maayo dalkan aanu soo halgamay aanu soo dhintay carqalad buu ka dhaliyay ee waan aqbalaya idinkuna aniga haday la shaqeynaysan oo inuu aqbalayna daagarash sidii ugu sheegay waa habeen aad iyo taariikh u ah xafladan daahfurka waxa weeyaan bandhiga buuga madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweyne deeqsiya madaxweyne waxa weeyaan degan madaxweyne go'aan leh Shaakir Cabdi Axmed Saab TV Burco